maanta qofka ay ku xayiran tahay madaxweyne waa adiga adeeg kugu xayiran tahay ninka ay u xayiran tahay doorashadu waa adiga dadku way fahmayaan way arkayaan go'aankii baa la iska rabaa ninka ay u xayiran tahay doorashadu madaxweyne ma aha maamul goboleed ma aha adiga weey shacabka iyo dadka iyo ehelka iyo ummadda u tanaasul dhibaatadan dalku ha ka baxdo madaxweyne wasaaradii warfaafinta ba dhalinyaradii iska xus ku shaqeynaysa ku dulman tahay cadaaladda aan ka sugayno oo aku agtaala xagee taala qul lil haqq walaw kana murran xaqa runta laga sheegaa haduu murrika qaraariga bal dib u akhri waxa magaalada ka jiro dib u akhri dhibaatada ka jirto nolosha wax la'aanta shacabku waxa adiga haysid ka waran iyo waxa ay ku nool yihiin ganacsiga dhibaatada uu qaba fiir dekada baabuurka ka soo baxa dariiqyada ay marayaan fiir silca ay ku qabaan ee baabuurta ay ku marayaan gaadiidkii baabuurta ganacsiga oo cashuurta dalka laga qaadanay dariiqyo ay maraan ma haystaan waana dalka wixii inta yareed oo lagu maamulayo meel ay maraan mala dariiq fiican ay maraan dariiqyada ay marayaan baabuurta inay gadoonto iyo inay ku dhibtooto ay ka baxaan maxaa kalifay waxa loo baahan yahay dalkan waxa laga rabay waxa loo baahan theater national dhismaheeda aniga waxa iga fiican dariiq ganacsatadu ay dariiqa u marayso waxa iga fiican hal isbitaal oo lacag la'aan oo shaqeynaa iskuulaad lacag la'aan life ka caadiga maanta 6 caruur qofka haysto 6 caruur iskool ma wada geyn karaan qarashna kama bixin karaan jaamacadda sidoo kale laba haday iskuulka jaamacadda kaaga soo wada baxdo kama wada bixin kartid xaqiiqada dalka hoos u fiir xarjiga aad dalkan gelinaysid fiir sadanada ilaahay baa dadka u qoro